halka wadaanka wararka daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah wafdi galbinaya madaxweynaha Puntland oo lagu weeraray duleedka magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari qasaare ka dhashay aad warkeena ku daawan doontaan cidda ka dambeysay qaraxaasi lagu weeraray warkanaga ayay qayb ka tahay sidoo kale wararka ugu dambeeyay qaraxaasi ayaan eegi doonaa maxaa xilligan ku soo beegay warkanaga ayay qayb ka tahay waxaad sidoo kale daawan doontaan xaaladda amni ee Boosaaso oo gacanta ka baxday iyadoo dhawaan la qarxiyay wafdi odayaal ah oo halkaas u tagay doorashada baarlamaanka qodobadaasi oo faahfaahsan ayaad warkeena ku daawan doontaan oo ay ka mid tahay maxaa kalifay amni darrada Boosaaso kadib markii isku dhaceen Siciidani iyo PSF qodobadaas oo faahfaahsan u diyaar garooba daawadayaal aynu ku bilownay duhurnimadii maanta qarax xoogan ayaa wuxuu ka dhacay duleedka magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari qarax ayaa la eegtay wafdi galbinaya madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni kuwa uu ka soo baxay magaalada Qardho isla markaana soo maray deegaano kale balse ku sii jeeday magaalada Boosaaso halkaas oo ay ka dhacayso doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya qaraxa oo jugtiisa si weyn looga maqlay gobolka Bari iyo deegaano kale ayaa waxa uu haleelay gaari Cabdibilaah oo hor socday madaxweynaha maamulka Puntland kuwaas oo ilaahayeen ciidanka ilaalada madaxtooyada madaxweynaha ayaa la sheegay inuu qaraxa ka badbaaday balse halkaasi waxa ku dhintay dhowr askari oo saaraa gaariga Cabdibilaah ee miinadu la kacday waxaa sidoo kale dadka deegaanka ay soo sheegayaan in madaxweynaha halkaasi uu hakad ku galay isla markaana ciidamo badan laga daabulay magaalada Boosaaso oo ay ku jiraan ciidanka PSF si uu soo badbaadiyaan madaxweynaha maamulka Puntland Daesh iyo Al-Shabaab ayaa gobolka Bari ku xoogan waxayna qaraxyo iyo miinooyin galiyeen wadooyinka isku xira Puntland gaar ahaan magaalooyinka Boosaaso iyo sidoo kale Garowe Qardho ayay sidoo kale dhowr qarax ku aaseen balse waxa kaliya oo looga fakaday waxa lagu tilmaamay wadooyinka oo dhisan ama laamiya taa oo suurtagal ka dhigayn in qaraxyadu markaas sida ay rabaan u dhacaan Siciid Cabdullaahi Deni ayaa goobta qaraxu ku dhacay lagu hakiyay waxaana meedadka iyo dhaawac halkaasi looga qaaday gaadiidka gurmadka degdega iyo sidoo kale gaadiid ay leeyihiin hay'adda PSF ee Puntland waa hay'adda nabad sugidda ka shaqeeyda taas oo gurmad ahaan Siciid Cabdullaahi Deni ugu soo gurmatay PSF ayaa waxay ahayd isha ugu weyn ee dhibaato u geysata Al-Shabaab iyo sidoo kale Daesh isla markaana si muuqata ula dagaalanta balse waxa muuqanaysay in shaqadooda habsanaan ay gashay tan iyo markii Siciid Cabdullaahi Deni iyo PSF ay isku dhaceen dadka deegaanka ayaa sidoo kale waxay soo sheegayaan in mar walba ay suurtagal tahay in iska hor imaadyo ay halkaasi ka dhacaan taasoo xoojin karta xiisadda iyo nabadgelyada ka jirta Boosaaso Siciid Deni dhawaan wuxuu ka soo amabaxay Garowe wuxuu maray Qardho sidoo kale waxa uu doonayay inuu tago deegaano kale oo dhowr ah taas oo keentay in weerarka halkaasi uu ka dhaco qasaare kala duwan ayaa ka dhashay qarax gaari ciidan markaasi haleelay oo ka mid ah wafdiga Siciid Cabdullaahi Deni goordhaweedna ka yimid magaalada Boosaaso sidaasi waxa ku warantay warbaahinta Puntland madaxtooyada Puntland oo ayna qoraal soo saartay waxa ay sheegtay in madaxweynaha Puntland uu ka tacsiyeenayo weerarkaas isla markaana uu ka xun yahay sida wax u dhaceen uuna sheegay in koox argagixisa ay weerarkaasi ka dambeysay balse dad badan ayaa isweydiinaya waxa xilligan ku soo beegay Puntland qarax kale ayaa dhawaan ka dhacay isla magaalada Boosaaso waxa la eegtay odayaal dhaqameed iyo sidoo kale wafdi la socday wasiirka qorsheynta Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ka oo magaalada Boosaaso u tagay inuu kursigiisa soo qaato qaraxyadan ayaa waxay soo badanayaan xilli arrimaha doorashooyinka dalka ay bilowdeen isla markaana la qorsheynayo in madaxweynaha maamulkaas uu ka qayb galo doorashada uuna soo saarto shakhsiyaad uu isagu doonayo amniga Boosaaso ayaa faraha ka baxay ayay leeyihiin dad badan tan iyo markii Siciid Deni uu la dagaalamay hay'addii sida muuqata uga shaqeyn jirtay nabadgelyada ee PSF oo ay tababartay dowladda Mareykanka isla markaana qalabka ay siido ayaa waxa ay wareejisay mas'uuliyadda amniga waxa ayna sheegtay inaysan amniga mas'uul ka ahayn waxaana la sheegay inay halkaasi ammaanka gacanta ku hayaan ciidamo ay tababareen Imaaraadka Carabta kuwa oo markaasi loo yaqaano BMPF oo u shaqeeya sidii ciidan daraawiisho kale
kuwa oo imaaraadku gacanta ku haya isla markaana ku sugan garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso. Ciidamadaas ayuu Siciid Deni aaminay waxaana sheegay inay yihiin kuwa amniga mas'uulka ka taas ayaa loo aaneynaya in amni darrada iyo dhibaatooyinka ay caqabad ku noqotay tan iyo markii meesha laga saaray ciidankii awoodda badnaa ee ammaanka deegaanadaasi gacanta ku hayay. In Siciid Deni la weeraro ayaa dad badan waxay ku tilmaameen amni xumo meeshii ugu dambeysay, taas oo ka dhigan inuu noqonayo madaxweynihii maamul goboleed ee ugu horeysay ee qarax lala eegto muddooyinkii dambe, wuxuuna noqonayaa wafdigii ugu horeeyay ee heerkaas leeg oo weerar intaas leeg la beegsado. Daacish iyo Al-Shabaab ayaa la sheegay inay ku xoogan yihiin buuraha silsilada ee Galgalo, Calmadow iyo sidoo kale buuraha dhaca bariga gobolka Bari, taasoo dad badan ay sheegeen inay xiisada iyo dhibaatooyin kusii kordhi karto haddii aan la qaadin tallaabo degdeg ah oo arrintaasi looga hortagayo. Siciid Deni la weeraro ayaa dad badan waxay ku tilmaameen inay ka turjumayso heerka Puntland maanta ay taagan tahay, isagoo Siciid Deni sidaasi ugu fashilmay amniga Puntland sidoo kale khilaaf iyo dagaal ka dhaliyay deegaanada Puntland ayaa dad badan waxay isweydiinayaan sababta ugu fakarayo inuu isku sharaxo madaxweynaha Soomaaliya. Dad badan ayaa arrinkaasi u arka mid aan soconayn, wax aan markaasi la aqbali karin, iyo inuu ka turjumayo halka uu ka taagan yahay burburka dalkan. Dad badan ayaa soo sheegaya in loo baahan yahay xilligan in waqti hore laga sii fakaro isla markaana aan la iska wareysan cidda lagala tashanayo ammaanka dalkan. Arrintaas ayaa sidoo kale waxaa loo arkaa inay carqaladeyn doonto qorshaha dalkan uu ku doonayo inuu horumar ballaaran sameeyo. Dowlad goboleedyada dalka ayaa iyaguna sheegay inay arrinkaasi aad uga xun yihiin, Puntland ay kula talinayaan inay arrimaha siyaasadeed ku bedelaan amniga, ammaankana ay horumariyaan. Puntland in la weeraro dad badan waxay u arkaan meeshii ugu dambeysay ee Siciid Deni fashilkiisa ka turjumaysa. Haddii halkaasi ciidankii Puntland lagu weerarayo, taasi waxa ay muujinaysaa heerka taagdarrada ciidamadaas oo ku guuldareystay inay wax ka qabtaan nabadgelyada, sidoo kale waxay ku guuldareysteen in nabadgelyadu ay sii ahaato mid waarta. Dad badan ayaana u arkaa in Siciid Deni uu ku fakeray xilli xun inuu maamulkaas uu ka tago maamulka federaalka uu soo aado isagoo deegaankaasi wax ka qaba waayay. waxaa la isweydiinayaa sida maamul kale halkaasi haddii uu ka dhasho ay ammaanka u sugi doonaan. BSF ayaa ahaa ciidanka kaliya ee sida weyn howlgallada u fuli jiray la dagaalami jiray Daacish. waxaa sidoo kale halkaas laga saaray awoodoodii military, shaqadoodii waxaa lagu soo koobay iyagu inay difaac galaan si isaga difaacaan ciidan kale ee Puntland. Siciid Deni ayaa ciidamada iska hor keenay, sidoo kale istiraatiijiyadiisa amni ayaa lagu tilmaamay mid aan shaqayn karin, taas oo hoos u dhigtay dadaalkii loogu jiray nidaam dowladnimo oo ka hirgala guud ahaan maamulka Puntland. Boosaaso waa magaalada labaad ee ugu weyn Puntland, waa xarunta ganacsiga, waana magaalada ay kasoo jeedaan inta badan odayaasha ama waxgaradka Puntland wax ka dhistay oo ku jiro Boqor Burhaan. waxa ayna ku sugan yihiin magaalada Boosaaso. Siciid Deni waxa uu awoodi waayay inuu kuwaas la shaqeeyo. dad badan ayaa fashilkiisa u arka mid Puntland iyo guud ahaan deegaankaba siyaasad xumo, qaab darro, dhibaatooyin soo kordhin karta, taas oo loo arki karo inay noqon doonto midda kaliya ee Puntland fashili doonta, horumarkeedana ka dhigi doonta mid aan socon karin. Puntland sanado badan ayay sheegaysa inay tahay hooyada federaalka, wadan soo kabtay, qorshe horumarin sameynaya, taasina haatan ma muuqato oo waxaa bedelay dhibaatooyin isi soo taraya, fashil amni iyo dhibaatooyin gobolka ka taagan, taasoo caqabada ka dhigi doonta mid aan wax laga qaban karin. waxaana dad badan fahamsan yihiin in la gaaray xilliga carqaladahaasi wax laga qaba lahay. dadka iyo deegaankuna waxa ay ku fashilan yihiin in arrinkaasi la sii socodsiiyo, waxaana xilligan laga maarmaana in dowladnimada Soomaaliya ay horumar badan sii samayso, lagana hortago qorshe walba oo nabadgelyada dalkan hoos u dhigi karta. waxaana la fahamsanaa in la gaaray xilligii dalka iyo dadkuba ay arrinkaas wax weyn ka dhigi lahaayeen, kana hortagi lahaayeen kuwa isku dayaya inay ka shaqeeyaan nabadgelyo darrada. Soomaaliya waa dal soo kabanaya, wuxuuna sameynayaa horumar ballaaran
ma jiraan caqabado xilligan horyaala nabadgelyada ayaa ugu badan waana midda haatan si weyn la isaga wareysanayo. In Siciid Deni la weeraro fashilka maamul ayuu ku salaysan yahay, dad badan ayaa sidaasi leh. Siciid Deni waxa uu wataa in ka badan 30 gawaari oo isugu jira kuwa ciidan iyo kuwa wafdigiisa. In la weerarana waxa ay ka dhigneed heerka fashil ee maamulkiisu gaaray ayay leeyihiin dad badan. Waxaa sidoo kale loo soo jeediyey in arrinkaasi wax weyn laga qaban doono, ayna muhiim u tahay dalka iyo dowladnimada in si wanaagsan looga sii fakaro tallaabooyinka xiga ee la qaadayo si loo gaaro horumar dowladnimo iyo qorshe isku xirantaa oo nabadgelyada dalka ka dhigi doonta mid la isku halayn karo. guud ahaan daawadayaal intaasi waxaan ogaag warka dhaanka wararka tan intaa mar kale kulmayna waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.